qayb ka mid ah dadka ayaa waxa ay caabudi jireen geed ku yaalay bannaanka magaalada. Nin ayaana ka carooday arrintaas, wuxuuna go'aansaday in uu gooyo. Waxaana u yimid Shaydaan oo isu soo ekaysiiyey suuro bini'aadam. Ninkii ayaa yidhi, waxaan rabaa inaan geedkan gooyo ee adi maxaa iga rabtaa? Wuxuu yidhi Shaydaankii, ma gooyn kartid, mana ku dhacdid inaad goyso. Ninka ayaa wuxuu yidhi, aniga ayaa ku tusi doona inaan gooyo. Shaydaankii ayaa waxa uu yidhi, waad caabudi kartaa balse ma goyn kartid. Waxaana ku haya arrintaas ka fiican. Subax walba barkintaada hoosteeda waxaad ka qaadataa 2 diinaar ee geedkan faraha ka qaad. Subax walba barkinta hoosteeda ayuu ka qaadan jiray 2 diinaar, balse isbuuc kadib waa uu waayay 2 diinaar meel ay ka baxeen. Isagoo caraysan ayuu soo baxay, waxaana soo aaday geedkii si uu u gooyo. Shaydaankii ayaa mar labaad ku soo laabtay, wuxuuna yidhi, maxaad rabtaa? Ninkii ayaa yidhi, geedka inaan gooyo ayaan rabaa. Shaydaanka ayaa wuxuu yidhi, maya, ma goyn kartid, mana ku dhacdid inaad goysid. Ninkii ayaa isku dayay inuu geedka gooyo, dhankiisa ayuuna aaday, balse Shaydaankii ayaa qabtay. Waxa uuna ku dhuftay dhulka, qoorta ayuuna ka qabtay. Waxa uuna ku yidhi, markii hore ma ku dili karin, sababta oo ah waxaad u socotay Ilaahay dartiis, balse hadda ma u socotid Ilaahay dartiis ee 2 diinaar ayaad mar labaad rabtaa. Waxaana awooday inaan ku dilo hadda, sababta oo ah ma socotid Ilaahay dartiis. Fadlan haddii aad tahay shaqsi xiiseeya mowduucyadan oo kaleeto, fiidiyowga like saar. Haddii aadan horey noogu soo biirin, subscribe taawo. Aad ayaad u mahadsan tahay.